Soomaaliya waxayna joognaa 7 kii caalamka jooga ayna la yaabaan qof baa caynay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay diinta inuu ku dhashtay oo ka soo jeedo oo bartay oo yaqaano mid kale inta u soo jawaabay wuxuu leeyahay ka xunaa rasuulkii Allah wax lagu sameeyay salawaatullaahi rabbi wa salaamun alayhi nabiga adiga dartaa loo jiro aadib loo gaarsiiyay dhigiisa oo soo daatay adiga maanta difaac saxaabada Allah ka raali noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday kadib bay difaaci jireen dhigi intuu idinka aaday hadal bis waxaad u koobtay inaa video asoo dubtaan bis meesha ku joojisaniya ya dad xun oo afkooda u raayo wasaqeen ah oo ibliis duubsado gaal ku dayanayo oo shayaadiimo ah ay nabigeena caynayaan sallallahu alayhi wasallam hal mid oo u dhow geesi wala dagaalamo helayaan miya ma uu ku jira miya markaas waxa isku dhigantiin laba qof isku istiin mid baa soo caaytimay wuxuu leeyahay beel hebelan ka dhashtay ana ugu laan dheersan geesi baanahay waxa igu la yaab ka badan mid baa soo hadlay mid kale intuu u jawaaba wuxuu leeyahay wariya miyaad garanaysaa anigu waxaan ahay beeshiida waxaan u ahay Khalid ibn Walid Allah ka raali noqday Khalid ibn Walid afkaaga ura ka dug Khalid ibn Walid jeega ma saarto naagna gacan uma qaada meelaha kama niikiyo kama heeso Khalid ibn Walid wuxuu difaacay diinta islaamka wuxuuna u dagaalamay jiray rabbi dartiisa u dagaalamay qabiil uma dagaalamaynin maanta laba isku dhigantiin waa dhisaysataan hal mid oo idin aqli cili idin kuma jira miya asaa waxa leedin waxa gees waay sidii Khalid ibn Walid wuxuu galay 100 dagaal in ka badan hadaladiisa oo ka hadlay oo ku hadlay waxa kamid ah markii geeridiisa ay ku soo dhawaatay wuxuu dhahay maanta waxaan ku dhiminayaa filaashkayga dushiisa intaas oo dagaalana galo yiri kumaanan dhimanin laakiin midka hoogay waa fulaygu yiri idinka maanta geesinima sheeganaysan dad lamid intay idinka gashay idinka ay seestay hal qof oo nin cadaan oo gaal ku dhigan ma arkaysid laba idinka ku sitin maxaa beelay qabiil meesha keenay waxa ay ugu xanuun badan in nabigeena sallallahu alayhi wasallam in Khalid ibn Walid afka in alla soo gashaan labadaas حيوان ويتابتين والله العظيم آد بيتابتين Khalid ibn Walid dagaalkii Uhud wuxuu la jiray gaalada wuxuu kamid ahaa asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii dhabaljiinta ku sameeyay kamid ahaa laakiin ilaaha khayr kala doonay Khalid ibn Walid wuxuu ahaa haliyadoodii wuxuu ahaa safety Allah buu ahaa Khalid ibn Walid Allah ka raali noqday Khalid ibn Walid markuu rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam rafiiqu la ala oo geeriyooday in qabtay yaani khilaafadii islaamka ee qabtay Abu Bakr Sadiq wuxuu kamid ahaa dadkii loo dilay dadkii doobay inay soo celiyaan ay la dagaalamaan asigii saxaabada qaar 40,000 oo nin isugu keeneen meesha dagaalkii ugu weynaa oo gal waxa kamid ah dagaalkii Amaama wuxuu dilay Musaylamatul Kadaab bay dileen asigii saxaabada beelowgii weynaa ilaa 10,000 oo dad ah idin ku jira 4 qof oo gaal maanta qof la dagaalanto ha idin ka soo dhaxbax idinka ay siisteen laba isku dhigantiin laakiin waxa la yaabnaaga taageera idin sina oo idin dhaawaa saxantiin beeshana ka soo jeeda waa lagu ogay geesi baata hal qof oo geesi idin ku jiro intay jeega idin saarantay naagana xamadkooda ay qaabinayaan idin kuma jiro mid geesi ah kulligiin waxa tiin fuliyiinatiin ilaa man rahimallah hada idin sheega qof dantiisa diintiisa ka adkaan waa fulay kii ugu xumaa ilaahayna ka cabsi rabbina xaqana waafajiyo Khalid ibn Walid afka laga baxo nabigeena sallallahu alayhi wasallam difaaci doona inta noolnahay